بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacaygu waa macalin Saciid Gaas halkan waa Nuuruddin Girls High School Laboratory and Science Department maanta arday waxaan halkan idinku soo bandhigaynaa reactions of some metals with acids water and oxygen so practical kan waxyaabaha aynu u baahanahay waxa kamid ah qalab iyo chemical qalabka aynu u baahanahay waxa kamid ah test tubes waxa kamid ah beakers test tubes oo halkan inoo yaala test tubes oo arkayno waxaynu u baahanahay beaker waxa kale aynu u baahanahay tong oo aynu ku qaban doono hot objects-ka waxa kale aynu u baahanahay forceps oo aynu u baahan arday waxa kale aynu u baahanahay inaynu haysano in this experiment in sodium metal lithium metal magnesium metal okay arday experiment keenan barashada biraha waxaanu baranaynaa gaar ahaan falgalada ay sameeyaan in biraha ku jira kalgalka cureeyayaasha ee group 1 iyo 2 sida group 1 waxa loo yaqaan oo ay kamid tahay sodium birta sodium oo had jeer ku kaydsan saliid waayo waa bir aad firfircoon iyo lithium oo iyaduna saliid ku kaydsan iyo magnesium oo iyada lafteedu kamid ah group 2 marka waxaan oranaynaa waxaanu eegi doonaa oo aynu barbar wada doonaa reaction-ka biruhu la falgalaan biyaha balaadana sida u kala firfircoon yihiin waxaanu la socon doontaa inaan ogaano sida ay u firfircoon yihiin in yar arday hadii aan raaciyo intaanaan experiment-kayga raacin in yar oo introduction haddaan raaciyo biruhu bani aadamku waxa horumarkan uu sameeyey markii knowledge of chemistry la bartay astaamaha ay biruhu leeyihiin astaamahooda kiimikaad iyo astaamahooda duleed waxaan oo warshada ah ee bir iyo large machineska iyo ama huge machineska ama maraakiibta waaweyn warshadaha waaweyn baabuurta waaweyn waxaas oo dhan are made of metals waxay ka samaysan yihiin biro marka science of chemistry markii la ogaaday ayaa in horumarkan bani aadamku u gaaray birtu waana waxaan oran karaa birtuna waa curiyaha kaliya ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay suuratul xadiid ama suuratul birta halka ilaahayna waxaan ka arkaynaa inuu inagu tusay in manaafacaadka dadka iyo horumarkiisuba uu ku xidhan yahay birtu marka in chemistry of metals inaanu easy ahayn waxaan doonaa maanta hadaba inaynu ka soo bilowno biraha ugu firfircoon oo ku jira group 1 waxaa kamid ah birta sodium ardayay waxaan ku dari doonaa birta sodium waxaan ku dari doonaa biyo marka arday sodium sidee bay og tahay in yar haddii aan soo qaado astaamahooda duleed waa biro jilicsan that can be cut with a knife oo midi loo kala jari karo always they are stored under oil waxa lagu kaydiyaa saliid arday waxaan soo qaadayaa bal birtii sodium waxay ku kaydsan tahay saliid waayo in order not to contact either the air or the moisture in laga ilaaliyo inay xiriir la yeelato in qoyaanka hawada ama biyaha waayo biyaha way la falgalaysaa waxaanay samaynaysaa muxuu ahaay layer oxide wax loo yaqaano so waxaan soo qaadanaa this watch glass waxaan dul dhigayaa birteeni sodium haddii in yar aan ka bixiyo qiyaas adeegeedu waa sida xalwadan aan isticmaalay xalwa hariisada waad arkaysaan oo saliid baan ka soo dhex saaray marka when freshly cut sodium is white shiny in metal underneath waa bir marka horeysa la kala jaro dhalaalaysa oo hoosta ka dhalaalaysa so look haddii aan eegno intaas waa white shiny metal when freshly cut so waxaan soo qaadan doonaa intaan aan soo qaato oon ku ceshado containerkaygii ardayo imika waxaan sugnaa waa reaction keenii sodium inaan ku darno biyo waxaan barbar dhigi doonaa bal hadda lithium iyadana falgalka ay u dhaxayso marka waxaa samaysmaya sodium hydroxide iyo hydrogen gas oo meesha laga saarayo
marka waa inaynu taa lafteeda tijaabinaa hydrogen gaasta meesha ka baxaysa oo saynu tijaabinaynaa hydrogen gas waxa lagu ogaadaa when ignited waxa bixinaysa bobson so look waa kan reaction kan imika sodium ayaan ku ridaya biyahaas maxaa dhacaya u fiirsada arday waan arkaynaa si fiican it is then oh that's great so you can see so sodium is more vigorously react with the water waxaan arkaynaa in sodium si xoogan ula falgashay biyaha waxaan eegaynaa arday haddaba maxaa samaysmay arday waxaan doonayaa in alkali metalsku marka ay la falgalaan biyaha arday marka waxaan soo qaadnaa birta lithium lafteedu waxaa lagu store gareeyay under oil marka lithium lafteedu waxay samaysay a black layer oxide so layer kan hoose waa layer oxide so when freshly cut so sodium lithium marka aynu kala jarno lafteeda when freshly cut it is white shiny metal underneath waa bir hoosta ka dhalaalaysa so you can see haddaan intaas sare aan ka remove karayno ardayay waxaan arkaynaa in lithium ay si fiican u dhalaalayso so look in lithium si fiican u dhalaalayso so bal hadda lithium baan eegi doonaa inakoo imika waqtigan tijaabin doonaa in hydrogen la sii daayey so look when lithium waxaan soo qaadan doonaa bakteerigeenna labaad waayo waxaan doonaynaa in bakteerigeenna hore isagana eegno ka tijaabino in sodium hydroxide samaystay isla bakteeriganna waxaan eegi doonaa arday lithium marka aan ku darno waxay la falgashaa biyaha waxaana samaysmaa lithium hydroxide iyo hydrogen gas imika waxaan tijaabin doonaa gaastaa la sii daayay ee hydrogen so look u fiirso waxaan isbarbar dhigaynaa firfircoonida keebaa firfircoon hadda jeer waxaan idhaahnaa sodium is more reactive than the lithium as you go down the group in the periodic table so as well as sodium is more reactive than the potassium so look what's going on when lithium is put in this water so you can see okay look ardayay lithium way ka firfircooni yartay bal waxaan ururin doonaa neefta la sii deynayo so look haddii neeftaas hydrogen tahay waxaan ku ururinaa test tube-kaas ka bacdina waxaan ku qaban doonaa dabkaas marka hadday bob sound bixiso waxaan ogaan doonaa inay hydrogen tahay so look that's great so now we prove you know that this gas was hydrogen gas because how can you tell if this gas is hydrogen my student you can tell when ignited hydrogen gives out a pop sound jabaqdii aad maqlayseen bay bixisaa isla sidaas oo kale ayay sodiumna u bixinaysaa hydrogen so productskeeni samaysmay wuxuu noqonayaa arday reaction equationkeena markaan u nimaadno sodium markaan ku darnay biyo waxaa noo samaysmay sodium hydroxide haddaba sodium hydroxide maxaynu ku garanaynaa inuu imikaynu samaysmay oo ah base ama soluble base waa base milma marka maxaynu ku garanaynaa waynu tijaabinay oo waynu garanay hydrogen lithium in markii ay sii deynaysay hydrogen waynu tijaabinay isla sodium lafteedu waxay sii deynaysaa hydrogen waxaynu ku garanaa the pop sound arday waxaan doonaynaa haddaba maxaynu ku garanaynaa in uu base uu samaysmay waxaa lagu garanaya inuu base samaysmay waxaan soo qaadanaa indicatorska oo chapterka hore aynu ku soo dhiganay indicatorsku turns alkali solutions into pink where neutral and acidic solutions are colorless markaa balada waxaan ku eegayaa this phenolphthalein waxay u bedeshaa wixii base pink wixii neutralna waa colorless marka waanu isbarbar dhigi doonaa laba solution oo midna acid yahay midna base yahay ka acid uma bedelayso waa colorless ka base kana waxay u bedeli doontaa pink marka
aynu wadeegno aan la soconno haddii markaan soo qaato arday indicatorkan si aan soo qaato phenolphthalein halkan baysu samaysmo waxaan soo qaadanaya sulfuric acid si aan ugu daro small amount of phenolphthalein marka iyadu ma bedelayso wixii acid ama wixii neutral ah so this is a sulfuric acid haddaan soo qaato okay haddaan soo qaato sulfuric acid oon ku daro a few drops of phenolphthalein waxaan arkaynaa inaanay bedeli doonin kalarkeeda so look wixii acidi waa no color change laakiin imika waxaan ku imin doonaa inuu base samaysmay oo sodium hydroxide samaysmay waxaan ku dari doonaa phenolphthalein kan waa kii sodiumtaan ku darnay so it will turn into pink so you can see it turns into pink and this indicates that sodium hydroxide has been formed during the reaction and this is lithium hydroxide when add a small amount of few drops of phenolphthalein it turns into pink so that's great so haddaynu ku walaaqno arday waxaan arkaynaa inuu dhammaan isu wada bedelayso pink kan kalena haddaynu wada bedelo dhammaan isu bedelaya pink so solutionskeena waxay noqdeen base